السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسوء من يرفعني سوء هذا المزارعة وعلينا كبير إسأل الزجيج متشارتك على إكرار البرد هذا المقصود بيننا وهذا صحيح في الوين ده اللي نقوله صحيح طريقة ليش عارف ما نشوف على وقت الوقت اللي هذا واحد بحيان نروح على نروح كينا نسوق إن شاء الله وحاول ما تحسون لي إن جبت قال كحيو نبض يحول على الوجه حالتاس أو كنتي أولاد صونا لعبتي مركا أنا مش الله فريد خلك قال كحيو هلا نور وقت إن شاء الله كبرنا نهان ودلني كويت وقت سنة يقول تبيسي لكن كلنا قال كحيو هي بيجانا ندرس كلام waxaa loo geystay runtii dhibaatooyin baaxad weyn oo weeraro joogta ah barakicin iyo horistaan horumar koodii ay ka sameynayeen deegaanadooda waxaa kaloo xusid badan dhacdooyinka ugu dambeeyey runtii waxaa la dhameeyey waxgaradkii furaha u ahaa nabadda dabcan marka mar walbaana puntland waxay ku jirta runtii difaac طبعا واجب ديني يمين وليبا وايد إلا الدفاع عن شرفته وكرامته مالك ذكر يقولنا ساسو تهبر والقبر قلنا وحن ديارنا هيدرا وارتاح وكبس الحداد قلنا وحي برنا عدين نساء إن ديارنا تهي إن فرنه وضبطي روح الشيء أبدأ بشأن فجر الكودي سيدا ما يستلمنا ممكن وضع القرار نورفهم إن شاء الله وعطوا بها نفسي دبعتها صورة على أي فصول افترضته إن أمكانه سواء كيانيا وهذا صورة مغريسة إسلام كان حمد على الواهرة ذكر الله أو كان الله نبضيتنا أي مغادرة الدجاجة قرار التاريخ لقبرك وعلى سوق نفسي هاي حيلنا يانا لماذا يدرس لماذا يكرم وعليها مركة وحين الله حريصته انت دعوة عانا إلهي وحمد رجينا إلهي وسيلة عافمات زكتك أما هذا كلمة هذا بطلاني وانا نبقى لك شيء عمرنا الإمام حيث هاي ما انت نقول بالبداد الله بس انت اللي بطيبها المواهنا أنا وحان سيدي عبر بسرينك وكل شيء انت اللي نقول بالبداد إلا قفل أنا كمسؤول لها طبعا وحنا صار مسؤولية كارة أو نفريسة إلى قاعدة مو قامو أتعرف وعن ذلك كورة في الحلم وأنا بدو الله بعيد هاي لقاته هذه لها ونوع تقله كلها إن أي نوع كشغيسه وأي جعش هاي وين أوداه وحنا بجينا يا إن وراء يقدرك كله أي مسؤولين دون قاتل كنا قنعان إن نفضل ضغط أوردان أي مصلحة تهيئ قولي خير بحجينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan mas-uuliyiinta ka kala socda dowladda federaalka iyo labada dowladeed dhammaantood waa islaamaya runtii waxaan ka mahadnaqayaa dowladda soomaaliyeed ee beesha caalamka intaba oo ka dhaarantay dhibaatada kaakacay ka taagan ee dagaalada ka socday ee soo abaaburay heshiiskan iyo wadahadaladan iyo fadhigan maanta aan u fadhino aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan aaminsanahay magaalada kaakacay inay tahay magaalo aad istaraatiiji u ah oo Soomaaliya xuduudooda ku taal nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay u tahay aasaas iyo gees u tahay aaminsanahay waxaan aaminsanahay dadka reer Gaalkacyo iyo dad walaalo ah oo wada dhashay inay magaalada ku wada noolaadaan ay tahay mid waajib inay tahay cid walba anaga naga mid ah inaan gabaasano Gaalkacyo magaalada dadka leeyihiin waxa ay ku deeqdaan ay tahay nabad iyo xasilooni inay ku deeqdaan colaad iyo dagaal
inaysan ku deeqin inaan maaragtay aaminsanahay waxaan kaloo aaminsanahay inaysan marnaba suurtagal ahayn qofka kacayinka degan ka mid oo deegaankiisa ka mid ah in qofka kale uu ka saaro inaysan suurtagal ahayn in qofka kale uu ka qabsadana inaysan suurtagal ahayn mar hadday sidaas tahay waxaa xaq lagu wada maanta waajibna lagu ah inaan garwacsano magaalada ay nabadeeda xisbiyada aasaas iyo base inay tahay ayaan aad iyo aad u aaminsanahay haddaan taa inta oga baxo waxaa bishaan ka wadeegay heshiis aniga iyo saaxiibkay cabdiweli kusoo yeelanay magaalada mudabay oo dhigaya 5 qodob oo lagu leeyahay xabad joojin ciidamada la kala qaado iyadoo barakacayaashii dadka magaalada ka baxay kusoo laabtaan in dacaayadda la joojiyo iyo waxa la wixii colaad fidin kara iyo in wada hadallo waara isugu yimaado magaalada Kismaayo 20 bisha annagu haddaan nahay deni diyaar waxaan u nahay heshiiskaas isagaa inuu fulino diyaar waxaan u nahay wax alla wixii nabad ku imaan karto inaan la nimaano ayaan diyaar u nahay waxaan kaloo diyaar u nahay wax kastoo tanaasula oo nabadda inuu tanaasulay inaan la nimaano diyaar waxaan rabaa inaan xusuusiyo 2 Diseembar sanadkii hore meeshaan ayaa heshiis lamida ku saxay heshiiskaas qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in isugu yimaado wada hadal waara oo lagu xalliyo arrimaha gaalkacyo waxaan aad uga xumahay wada hadalladaas inaysan dhicin suurada geli waxaan rabaa inaan caddeeyo wada hadalladaas inay ka suurageli waayo dhanka walaalihi puntland ay ka suurageli waayo inaan caddeeyo haddii wada hadalladaasi ay dhici lahaayeen oo heshiiskaas Diseembar 2 aan saxiixnay uu geli lahaana dhibka maanta dhacay inuusan dhicin aad iyo aad aaminsanahay waxaan qabaa marka heshiiskani inuu kiilo kale usoo noqon wada hadallada iyo heshiiska laba in la sameeyo in uu guri galo inuu taabo galo si nabadii iyo xasiloonidii aan kulligii kula wada taamayna magaalada gaalkacyo u ambaqaado ayaan aad iyo aad u jeclaan lahaa kulligii anaga dhankeena galmudug ahaan diyaar waxaan nahay meel kasta oo wada hadalladaas lagu qabanayo iyo si kasta oo loo geliyo inaan nimaano ayaan diyaar u nahay walaalahayna waxaan ka rajeynayaa sidaa iyo si lamid ah in ayaga diyaar usoo noqdaan in la wada hadlo maxaa yeelay aan wada hadalna la anshiino sida keliya aan ku wada noolaan karno maxaa yeelay annagu inaan deris noqonaa annagu iskuma aanu doonin ee ilaaha noo dooro inaan deris noqono mar haddaan marka inaan deris noqono ilaahay noo dooro isma hurtay hay sahlaynaya yaana maaragtay isfurmayn taa haddaan intaa oga baxo waxaan arkaa halka waara magaalada gaalkacyo inay u baahan tahay wada hadal qoto dheer oo ay ka qayb galaan dhammaan qaybaha bulshada oo dhan haddii aan lahayd siyaasad iyo haddii aan lahayd bulsho intaba ayaan aad iyo aad u aaminsanahay qodobada iyo waxa laga wada hadli doonada iyo daliladeedana ka hor dhici maayo xilligeeda ayaanu dejin doonaa insha Allah tacaala waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursadda aad iyo runtii ayaan daro u tahay dadka gaalkacyo wada degan iyo labada maamul inay waxyaabo aanan nabadda waxba ka tegayn inay isku turturaan aad iyo aad naas ma aha waxaa ka mid ah in qofka walaalkaa aad og tahay inuu argagixisada dhibka aad ku qabto kale ku qabo dagaalka ay kula jira inaad tidhaahdaa argagixiso waaye ama dhankiisa argagixiso ka timaada runtii wax nabad keeni kara ama nabad u adeegi kara ma aha aadan uga xumahay arrintaas ayada aad iyo aad runtii u arkaa inay tahay arrintaas sii hurnayso colaadda ku tarayso inay tahay marna ma aha ayaan daro waaye in maaragtay qof mas-uulan u yiraahdo war annaga al-shabaabka naga anagu bayna dilaan kuwa kale bay dilaan shabaab bayna shabaabku annaga waana dilaan idinkuna waana dilaan sida kilana uga adkaan karna waa inay wada dilaan aan uga adkaan kartaa maahe inaan fort isku fiirnaa uga adkaan karna aad iyo mahadsan كنا نقول رمان برتدي ماشي عالمك إسافرية كل كيودا يروان تكلم ماشي أفريقيا كيودا كنت واحد من الأمور اللي صوتها وقت واسطة لكن ماشي سنة دون مسؤولة مسؤولية أنا هنا الدنيا آخر والمفروض حسابه وح حلس أنا مسؤولية أنا دخل إذا قالوا هنا خاصة إلى تلك بنتان مالك وأهل خطرة ومدر نقول حسابه يسوع آخر نقول حسابه مركا ويدك والله هوي ما أنت لو حياة أساس فهو عمر حب جوجل أن مرتبط حبط كدع ماشان وده حلقة أنت اللي قاعد وده حلقة ندينا إلى سيدي أو دول بمسوا شيء
bisha labaatan kismaayo isugu yimaado wadahadalka la galo midda gaalkacyo gudaheeda ayadan la galo arrintan waxaa xogaaya yani yaab sideena waxaan isleeyahay annaga federal system dadku waa ku degaya laakiin haddii federaalkii uu xabad iyo xoogaa dhib keenaya inaan ayada xataa u fiirino haddii la yahay waxaa loo baahan yahay meeshaan dadka kan heshiiskii December aan saxiixnay ayaan ku sheegnay saameynta ay ku leeyihiin dadka xasiloonideeda iyo dadaalka loogu jiro in Soomaaliya lagu soo dabaalo nabad waarta marka runtii ayaan darooda wax dhacay waa ka tacsiyeenayna dadkii ku dhintoo dhan intii dhaawacatayna wixii loo firdaan ahaan ama qawayna waa la qabanaya haddii la yidhaahdo maanta waxaan kusoo koobaya asaaska waa labadaas dhigo meeshaan ma jiro ciidan saddexaad oo aan kula kontroolin oo meesha wax ka soo kara ciidamada qofka haysta waxa ay ka tirsan yihiin kulanka galmudug iyaga waxaa la baahantii inay muujiyaan xakameyn buuxda meeshaan xabadda waysa iska dhicin sideeda oo state ama dowlad goboleed shacab maaha caakifin lagu dagaalama state waxaa loo baahan yahay runtii iyo objective ayuu leeyahay hadafuu leeyahay halmidaas in la fiiriyo dagaalka runtii dhacayaa in mar kasta laga taxado marka insha allah waxaan rajaynayaa dhowr wixii noogu horeynaya maanta fursadda ay halkaan isugu yimid iyo sida loogu jiro dagaalkaas inay fuliyaan waxaan rajaynaynaa in tii awadoyn insha allah lasoo afdala iyadana hal waaraana laga gaaro magaaladan dadka degan runtii sidii kalsooni loo soo celin lahaa nabad waxayna waa sheegeen ummaddan ummadda waa haween inay sidii lasoo soo celin lahaa loo soo celin lahaa loo doorta loo bixin lahaa magaaladan haddii ay nabad hesho waxay noqonaysaa magaalooyinka xasbuulaha u noqoto marka waxaan rajeynaya insha allah tan fursadda inoo noqoto meesha aan kasii socono labaatanka bishan haddii la yidhahdo sida loogu uloogsooyay insha allah arrintaas aan meeshaas kasoo wado waa masanka islaamka. Very brief. First of all, this today is very significant, and I'm really pleased that Prime Minister we brought President Kass, President Gulen together in order to fulfill the agreement of last year of Abu Dhabi and to find a basis for moving forward. waxaan soo koobayaa marka horeysa wasaaraha waxaan aad u faraxsanay inuu maanta isugu yimid madaxweynaha galmudug madaxweynaha puntland si loo hirgeliyo heshiiskii sanadkii hore la galay iyo heshiiskii abudabi lagu galay 45 people have died in the last 5 weeks. There are 90,000 people displaced. 40,000 of those 90,000 are double displaced. We have a drought. We have instances of cholera. It is imperative for the people of Galkayo and for Galmudug and Puntland that we find a solution, because this is not a win-lose situation. This is a lose-lose or a win-win. ayaamihii lasoo dhaafay dhowrka toddobaad lasoo dhaafay 45 dad gaaraya ayaa ku dhintay dagaalka waxaa ku barakacay 95,000 dad gaaraya oo 45,000 ka mid ah ay laba jeer barakaceen oo ah abaaraha ka jira abaaraha dalka ka jira waxaa kaloo oo cudurro iyo inay ka dilaaceen baa la sheegaya marka dagaalkan cidna ku guuleysanayso qof ku guuleysanaya qof khasaaraya ma jira labada dhinacba way ku khasaarayaan. There are those who are actively seeking to undermine peace and stability, and failure to find a solution will give them further opportunities. We know what has worked to preserve the peace. There will always be differences over water, over land, and so on. And we have to protect those here in Galkayo who are in a position to preserve this peace and support them to play that role. dad waxaa jira oo colaada huriya oo marna nabadda doonaynin oo ka faa'iidaysanaya marka haddii heshiis la gaari waayo iyagii bay faa'iido tahay iyagii baa ka faa'iidaysanaya marka waxaan u baahannahay inaan dadka reer gaalkacyo aan u turno oon nabadda si ay u heli lahaayeen iyaga oon awood u siino ayaan u baahannahay. And as you've said, we have 3 objectives. First is an immediate ceasefire. Second is to agree a process going forward.
And third is to discuss what structures and arrangements and committees are required if the ceasefire and the process are to be successful. sidaas sheegtay waxaa jirta markuu horeysa in xabadda la joojiyo marka labaadna in wadahadalkii la bilaabo marka saddexaadna in hanaankii lagu joogtayn lahaa oo wadahadalladaas iyo waxbadjoojintaas ay ku socon lahayd oo lasla midhadhigo. And I'm here representing the international community. I'm delighted to be here with the ambassador of the EU, Veronique Lorenzo, with Gabriel of IGAD, and with my sister Lydia of the African Union, to say that we are here collectively to support these efforts and to do whatever we can to ensure that your discussions are successful, but we also want to make sure that the promises that we make to each other are then honoured, because there is too much at stake, not only for the people of Galkayo, but for Somalia. Because if we are able to solve this, it will be good for the whole country and it will set a precedent. As you said, PM, for the federal project, but also for security, but also so that we can invest in economic growth and for the health and safety of the people of this area. anigoo ku hadlaya magaca beesha caalamka oo ay maanta ila joogaan wakiilka cusub ee midowda yurub IGAD, wakiilka ka socda midowda Afrika, wakiilka ka socda, dhammaanteena waxaan meesha u joognaa marka horeysa inaan idinku taageerno dadaalka aad wadaan sidii looga meelgelin lahaa. marka labaadna waxaan doonaynaa inaan markhaati ka noqono oo aan idinla soconno si arrintan oo ay wadahadalka iyo heshiiskan oo meel loo gaarsiin lahaa. maxaa yeelay sidaad sheegtay arrintu wax badan bay Soomaaliya oo dhan bay taabanaysaa, gaalkacyo keliya maaha. gaalkacyo kulli Soomaaliya oo dhan bay taabanaysaa. mashruucii federaalka yay taabanaysaa in lagu guuleysto iyo horumarna si oo maalgashi iyo horumar si Soomaaliya loogu sameeyo nabadaasay ficlan tahay. bismillahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan runtii mahadcelin ballaaran u jeedinayaa ra-iisul wasaaraha qaranka Mudane Cabdirashiid, madaxweynayaasha labada dowladood, international community, dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsantiin maanta inaad ka qaybgashaan barnaamijkan halkan. intaa dowladeed waqtiga oo yara weyd waa inaan soo koobno. annaga galmudug ahaan waxaanu aqbalnay go-aankii uu noo soo qaaday madaxweynaha galmudug oo uu gobolkiisa seexaan konflikt sidii loo aqbalno. ilaa intaas wixii ka dambeeyana waanu ku dhaqmaynaa, isagana waan ku dhaqmaynaa. waxaan rabaa hadal inaan sheego madaxweynuhu yiri, laakiin aan ku celcelina sababtoo ah waa hadal naga dhaqaa weeyaan. hadda ka hor sanad ka hor gobolkan aan hadda joogno waxaan ku gaarnay heshiis sidaan oo kaleeta. waxaan ku ballanay Kismaayo in lagu sameeyo dhamaystirka heshiiskaas. same people oo dadkii halka habuuna hadlay ah markaan Kismaayo tagnay ayagu weji kale oo aan dani ka haynin wixii aan kusoo ballanay, oo aan dani ka haynin in aan maaragtay dhamaystirno hadalkii ayaan ka uugtay. annaga marka hadal aan dhammaanaynin oo maalin walba muxuu ahaa meesha loogu talagalay aan tegaynin macaan looma sameynayo, danna kama lahaanin. waxaan rabnaa haddii aan galno nabadeyn iyo wadahadal inaan galno mid dhammaystiran oo dadkeena iyo deegaanadeena iyo ummaddeena ay ku wada guulaystaan inaan helno ayaan rabnaa. sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa walaalahana inay nala fahmaan in nabaddu ay ayaga iyo annaga bartan noo tahay oo aanaan midkaani ka maarno. qolo ka adkaanaysaa ma jirto, dowlad ka adkaanaysaa ma jirto. waxaa weeyaan gaalkacyo labadeeda dhinac weligeed sidaasay ahaanayaan. dadku waxay u tukanaanayaan sidaas, qolo qaxaysa iyo qolo tigaysa iyo qolo adkaanaysaa ma jirto. waxaan heshiin doonaa markii dadkeena yaraadaan oo dhammaadaan oo dhimashadii badato ka bacdi ayaan heshiin doonaa haddaanan hadda heshiinin. marka inta hadda nool oo maantayto nala joogta ama aan nala joogin inaan badbaadino noloshooda, taasaa annaga naga go-an. adinkana waxaan ka codsanaa inaad sidaas noola qaadataan si taas u fusho. marka waxaan jeclaan lahaa heshiiska wadaxaajoodka oo kan ka dambeeya inuu noqdo mid ay joogaan dad aan labada dhinac ahayn
muxuu ahaayey nagala qayb qaatay arrintaas oo haddii waddada uu ka baxo hadalku tuusin kara oo soo saari kara waddadii si uusan ugu khaldamin waxaan rabnaa inay dadkaas noqdaan dad go-aan qaadan kara waxaan rabnaa in ay muxuu ahaayey ilaa gebagabadan goobjoog ka noqdaan annaga ayaga hadda ka hor aan isu tagnay waan dhammaystiri weyn halkan markii aan nimid anada bilta magaalada waxaan u imid oo madaxweynuhu ii soo diray aniga iyo tiim kaleeto in aan gaalkacyo arrinteeda kala hadalno wasiiro kaleeto oo dhigeenna oo 3 ahaa oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ka wada hadleen marnaba waa isku afgaran weyne inaanu meel isugu nimaadno ama aan ujeeddada iyo qaabka aan u hadlayno aanu isla garanno meesha ma dhaafayso anna waxaan aqoonsanahay galmudug waxaan aqoonsanahay puntland waxaan u aqoonsanahay 2 dowlad goboleed waxaan u aqoonsanahay in ay sidaas wax ku fulaan shacabkeenna iyo dadweynaheenna iyo odayaashan dhaqanka iyo culimadiinka waxay iyagoo naga mid aan wadagelaynaa iyo siyaasadeena iyagoo naga mid aan wadagelaynaa laba ka mamnuuca ma jirto galmudug degmo kastoo ay tahay iyo koox kastoo ay tahay nabada qayb bay ka noqonayaan qayb gaar u leh ma jirto qayb laga tegayaan ma jirto waxaan rabnaa puntland oo dhammaystiran aan la heshiino waxaan rabnaa galmudug oo dhammaystiran in heshiis la galaan aad baa mahadsantiin maanta halkan waxaan isugu nimid maran fureyn hawshii aynu ku qabanay oo ahayd nabadayn dadii kale meesha waa gaalkacyo waa magaalo aan hadda cusbayn waa magaalo qadiim ah waa magaalo jiri jirtay waa magaalo lagu wada noolaan jiray waa magaalo darisnimo ah muddo dheer waxaa dagaaladeeda uu joojin lahay isweydir bay u baahanta waa midda labaad shirkan shirkii ka horreeyey abaa lagu ballamay joojin baa ka mid ahay in puntland ka warwareegtay wadahadallada qayb baa halkaan laga sheegay laakiin arrintaas ma jirin maalinta xaqa joojinta lagu dhawaaqay ilaa maanta intii way socotay mala istaagin dhib socotana ilaa ay joogsato wadahadal imaanmayo sidii baa xabadii u socotay weerarkii u socday qaraxii u socday madaxtoogashadii u socotay marnaba lama helin nafis lagu wada hadlo oo isugu yimaado taasaan ka leeyahay midda kale oo ah saaxiibadaya way yimaadeen waa run way sheegeen madaxweyne guuleed inuu soo magacaabay way jirta annaga madaxweynahayo inuuna magacaabay laakiin inaan arrintaa ka wada hadalno oo isugu nimaadno marna waxaa suurageli waayey xabaddii oo aan marna joogsanay in badan baa codsanay xabaddu ha joogsato dadkaa la dejiyo kabacdaan wada hadalno ma dhicin marka arrintu yay noqon hashu ayadaa geela cunaysa haddana cabaadaysa mar haddii xabadii socoto wada hadal ma jiray waxaan codsanaynaa gaalkacyo magaalo qadiim ah waa lagu wada noqo magaalo xuduudaheeda la yaqaan wey magaalo deegaankeeda la yaqaan wey magaalino walbaa guriga uu leeyahay uu yaqaan wey maalin walba xabaddu inay socoto oo kollay annagu aanu aragna si buuxda xabadda lagu socota mid dulmi inay tahay baanu u aragnaa waxaan ka codsanaynaa walaalahayo nabadaan rabnaa dirisnimadaan rabnaa dadku waa dad waxyaabihii aan hadda soo garanay oo ah 3 qodob qodob waxaa weeye xabad joojin degdega iyo guddi labada dhinaca ee ka shaqeeya xabad joojintaas in maanta lasoo magacaabo dilaya qodobka labaad waxaa weeye in bisha 20-keeda dilaya kasooyay isugu yimaado oo meeshaas wadahadal qaban karo tan saddexaad waxaa weeye wadahadalkaas inay ka soo baxaan habka loo wada hadlayo guddiyada wada hadlaya iyo guri marka 3daas qodob weeye saanku maanta haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajeynaynaa in aad bacdii nabad iyo heshiis baabile loo maaha waan samaynaynaa iyo waa heshiinaynaa laakiin ma jirto heshiis waa heshiis haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajeynaynaa kasaainaan isugu marno meeshaasna ka sii ambaqaadno guddiyadii iyo habkii loo geli lahaa dadna lagu heshiiyo billahi tacaala
ومحسنتين انت كسوق شغل وهو آمين